halkan waxaa ah 5 caado ee ugu sareysa ee dhaawici kara kelyahaaga. shaqada ugu weyn ee kelyahaaga waa in meesha laga saaro qashinka dheefshiid kiimikaadka ka imanaya jirka iyo in la habeeyo soo saarka unugyada dhiigga cas. si tan loo sameeyo kelyahaaga waxay u baahan yihiin biyo, waxayna u baahan yihiin xaddi fiican oo kamid ah. marka aanad cabin biyo kugu filan, dhiiggaaga wuxuu noqonayaa mid isku soo ururaya oo ruban ama afka qalaad loo yaqaano concentrated. kadib qulqulka dhiigga ee kelyahaaga tegi lahaa way yaraanayaan. tan waxay curyaaminaysaa oo wax u dhimaysaa awoodda kelyahaagu kaga saari lahaayeen sunta jirka, taas oo horseedi karta dhibaatooyin caafimaad oo badan. marka aad ayay muhiim u tahay inaad cabtid biyo kugu filan si loo habeeyo socodka dareeraha ee kelyahaaga. qofka weyn ee caafimaad qaba waa inuu cabaa ugu yaraan 8 ilaa 10 koob oo biyo ah ama cabitaan miro ah maalintiiba si uu jirkiisa ugu ilaaliyo biyo ku filan. si kastaba ha noqotee, xasuusnow inaad biyo aad u badan qaadid ayaa laga yaabaa inay kugu adkaato kelyahaaga. haddaba sidaa darteed waa inaad ka fogaataa wax dhaafa oo xasuusnow dheelitiranku waa furaha. qaadashada cusbo aad u badan ama milix ayaa sidoo kale war xun u ah kelyahaaga. kelyahaaga waxay 95% falgal kiimikaad togan la sameeyaan sodiumka cuntada laga nuugo. marka qaadashada milixda ay heer aad u sareyso, kelyahaaga waa inay si adag u shaqeeyaan si ay u saaraan milixda xad dhaafka ah. tan waxay natiijadeeda noqonaysaa inay hoos u dhacdo shaqadii kelida. milix xad dhaaf ee ku jirta cuntadaada ayaa iyana sababta haynta biyaha iyadoo sare u kac ama kordho cadaadiska dhiigga. haddaba cadaadiska sare ee dhiigga wuxuu waxyeello u geystaa kelyahaaga waqti badan, waana sababta ugu weyn ee sababta in kelyahaagu fadhiistaan oo shaqadoodii gabaan. sigaar cabistu waxay daciifisaa xididdada dhiiggaaga, wuxuu yareeyaa qulqulka dhiigga ee kelyahaaga tegaya, xitaa wuxuu dardar gelin karaa luminta howlaha kelyaha, waxayna ka sii dari kartaa cudurka kelyaha hore uga jiray. haddaba daraasado la sameeyay ayaa muujinaya in jiro xiriir ka dhexeeya sigaar cabista iyo cudurrada la xiriira kelyaha. xaqiiqdii sigaar cabistu waa mid ka mid ah sababaha ugu badan ee horseeda xaaladda afka qalaad loo yaqaano end stage of renal disease, oo noqonaysa in gebi ahaanba kelyada shaqadoodii joojiso. marka laba xaaladood mid uun bay noqonaysaa in qofka loo sameeyo kidney transplant oo ama af Soomaali ku noqonayo in qofkii kelyada loogu deeqo oo kelyada laga bedelo, ama in loo sameeyo dialysis oo noqonaysa in qofkii kelyadii loo meedho weekii 2 jeer. kelyahaaga ayaa ka caawiya sidii loo sifayn lahaa waxyaabaha ama dhibaatooyinka ay keenaan maandooriyaashu ay ka mid yihiin khamriga. haddaba marka aad cabtid cabitaan aad u culus oo khamriga, kelyahaagu waxay ku jiriyaan cadaadis aad u badan. khamriga oo si joogta u cabtaa wuxuu sababi karaa inuu waxyeello u keeno nidaamka kelyahaaga. khamrigu aad buu biyaha jirka uga saaraa ama afka qalaad waxa loo yaqaan dehydrated. haddaba heerka khamriga ee jirkaaga ku jira hadduu aad u bato ayaa sababi kara in xubnahaagu si fiican u biyo dareeraan oo biyo ku filan waayaan oo waxqabadkooduna markaa hoos u dhaco. khamrigu sidoo kale wuxuu sababaa cudurrada beerka ku dhaca, taas oo carqaladaysa nidaaminta socodka dhiigga ee kelyaha. xanuun baabiyaasha waxaa loo qoraa si joogto ah inay kaa caawiyaan arrimaha xisaabaadka, laakiin qaadashada xanuun baabiyaasha fara badan waxay dhaawici karaan kelyahaaga. daawooyinka afka qalaad loo yaqaano over the counter painkillers sida aspirin oo kale waxay yareeyaan socodka dhiigga ee kelyahaaga. daawooyinkan ayaa weliba si toos ah oo suna ah ugu ah unugyada kelyaha iyagoo dhaawacaya hawshooda. haddaba sanad kasta 3% ilaa 5% kiisaska cusub ee kelyaha hawshooda gaba ayaa sababa isticmaalka faraha badan ee xanuun baabiyaasha. haddaba kuwani waa tiro yar oo ah caadooyinka waxyeeleeya kelyahaaga, laakiinse waxaa jira caadooyin badan oo qaab nololeeda oo kale oo aynaan garanayn inay wax u dhimayso kelyaheena, sida ku noolaanshaha habnololeedka aan firfircoonayn ee aynaan cunaynin cuntooyin dheelitiran. ugu dambeyntii, haddaba isku day inaad sida ugu wanaagsan uga fogaato caadooyinka si aad kelyahaaga uga dhigto kuwa caafimaad qaba. naftaada waad badbaadin doontaa dhibaatooyin badan mustaqbalka haddii aad sidaas samayso idinka Ilaahay. intaas ayuu ku yahay mowduuca maanta. fadlan haddaad kanaalka ku cusub tahay subscribe